سلام كدب waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay igu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran waxaan u ballan qaadaa insha Allah tabaaraka wa taala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyay loo gaari lahaa inaan hogaamiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxa la wada socotiin axsaabtu dalkeena xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5 loona gaaro marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taas ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba doorashadii waxa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka doorasho ee aan doorashada ku gali doono ma jirto xurriyaad axsaabta siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqdhaqaaqi karaan ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxa la socotiin magaalada Muqdisho hadii la damcayn wax laga sameeyo waa ina dawladda fasax ka hesho arintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa غير dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kasta Soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meesha uu doono iyo cidda uu doono iyo waqtiga uu doono inuu qabsan karo shir madashan oo aad ogtihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalad ah waxyaabay u taaganta waxa kamid ah space kaas in la helo qofka Soomaaliga inuu helo xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa ma naqaan ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay dhinac dawladdu waxay leedahay kulay inaan maqashana u maleynaa one man one vote inta laga sameeynaa one man one vote laabadiisi ma la qaaday amnigi ma la sugay dadkii ma la tirakoobay sharciga ma la ansixiyay wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida gudoomiye Usmaan oo sheegay koox la yiraahdo wadaniina inta la aruuriyo doorashada galay annagana waa amirayna waxa u maleynaa in intaas ka weynaa we never accepted that waxa la rabaa dawladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyay in dalkan ka dhacdo sababta aan leeyahay waxay tahay wixii loo diray ma fulin dawladda waxa laga rabay dalka in la xoreeyo al-shabaab laga xoreeyo dalka la tirakoobo doorasho sidaas lagu galo ma la sameeyay lama sameeyay annaga dariiqyada luqluqa ma aqbalayna waxaan aqbalaynaa dariiq cad dalkan iyadoo duruufta intaan ka aragtaa doorashooyina la soo qabtay waa lagu heshiiyay madaxweyne xasan sheekh waa kana saldhig maxaad meesha booliska oo doorashada lagu qaban jiray iskool buluusiya annaga dhana doorashada ma lagu qabanayo maxaa yeelay taliyaha booliska waxa uu dhahay madaxweynaha ku taageerayna si dadka dhan madaxweynaha ku jooga kamid asa kamid ah ha marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna annaga dalka doorashada u taaganahay inaan tartanaan rabnaa laakiin waxaan rabnaa wax aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isaga dawladdiisa warkaas waa la fahmaa umaleena colaad ma jirto waa accept garayna markii la doorto garbahan ka istaagna masaga noo yeerta hal taageeraan dhama masaga naga codsaday qof kasto ka soo horjeedo waxaan dhijirnaa madaxweynaha aan ku keeno war u kaadi madaxweynaha 4 sano dhamaysto ma jirto shakhsi ma aha qabiil ma aha waxaan rabaa si kaliya inaan u ilaahdo waxa waaye system dawladnimo oo Soomaaliya ay leedahay qof walba Soomaaliya waxaan rabnaa inuu dareemo dawladda inuu dawladdiisa tahay dhibaatooyinka shacabka lagu haayo jidadka la xiray iyo harassmentiga socda waxaan rabnaa dawladdu si degdeg ah inay wax uga qabato waxaan ognahay saxafiyiintii Soomaaliyeed waa la xiray Soomaa maxaa lagu xiray dad mudaaharaad ay soo tabiyeen Soomaa waa xuquuqda saxaafadda xurriyaadka saxaafadda kuwa kale waxay ku xiran yihiin baydhabo waxay u xiran yihiin dawladda ma aha maamulka inuu xiran yahay xogta hayna waray tabiyeen dad odayaal ay sheegeen ilaa hadda waa ku xiran yihiin maxay ku xiran yihiin dalkan wuxuu u dumay cadaalad darro
cadaalad darro ma aqbaleen inta aan noolnahay cadaalad darro nafteennana kama ogolaanayno qof kalena kama ogolaanayno waxaan rabnaa taas inay aad u fahamto dawladda sharaf qof madaxa waxaa ugu filan inuu cadaalad sameeyo ilaahay in loogu dhawaado wax ka muhiimsan maanta la joogo cadaalad ma jiraan war dalkan cadaalad darraa burburisay dadkan waa kuu soo baxeen waa ku taageereen xoolo kuma bixin waxa ay rabeen dawladnimo ahayna kugu taageereen aawa dawladnimada isweydi dalkan siyaa xukuma horta wixii dhaca waxaa lagu leeyahay madaxweynuhu ma oga yaa xukuma dalka annaga ninka aan madaxweynuhu yaa ku wareejista adiga dalka madaxweyne anna madaxweynaha la xisaabtamayna dadkan kale hoos laga sheegaayo shaqo kuma lihin annaga hawshu intaas waa ka sii dheerta hawshu intaas waa ka sii dheer tahay aniga waxaan rabaa inaan aad u caddaado saraaxaan rabaa maanta aniga ma la socotiin ciidamo ajnabiya in axmedowne la rabo in lagu soo qabto ma la socotiin ma socotiin hadda ka hor markii oo doorashadu dhacaysa soo lama socotiin billaahi calaykum arrintaas sidaa dhici lahayd maxaa dhici lahay dagaal qabiilan weligiis dhammaana dhici lahaa boqol jirsada ma idinla tahay inaan ka aamusi karno kama aamusi karno farmaajo axmedoobe waa ii siman yihiin qabiilnimo aniga to be clear mase qof war ka qabaa jira laakiin dawladdu inay awooddeeda diblomaasiga u adeegsado inay qof kala aamus ma la aqbali karo wax la qariyay waxaa la yidhaha qurunaa ku jira ma qarinayno bannaankan la taagana xisbiyada qaran ee halkan isugu yimiday waxay ka hadlayaan waa xuquuqda iyo xurriyaadka dadka xuquuq siyaasiya xuquuq nololeed xuquuq dhaqaale wamaa ilaa daalik dalkan magaalada muqdisho dhaqaalaheeda waa dumay muxuu u dumay meel walba waa la xiray nin akhyaar ahoo dadka ugu waaweyn intuu u yimid oo xorinay waa lugaya aniga maxaa dhacay baawar meelaan ku wada male hogaamiye kooxadeed markay ay joogeen iyo hadda dadku waxay leeyihiin hogaamiye kooxadeed markay joogaan afcinaad waxaa laga yaabaa mararka qaar inay istiraadin waa mubaalaqa ma mubaalaqoona dadka ay sheegay maxaa yeelay dhaqdhaqaaq la ogol yahaa jiray oo lala noolaaday dawladdii aan gacmaheena ku dhisnay waxaasoo dulmiya dadka inay ku samayso aan ka aamusno annagay dembi nagu naqahay arrintu madaxnimo doon ma aha kursi ka riixasha ma aha qof nacayb ma aha qof jacayl ma aha waa ilaalinta dastuurka oo dawladdu ay ku dhisanta that's all marka waxaan rabnaa Soomaaliyaan nahay mas'uuliyadda Ilaahayna saaray qof walba wax garad inaan wada dadaalno dhalinyarada aan hortaagan oo wiilasha gabdhaha leh khatarta iyaga u horeeya meesha xabadda ku dhacaysa iyaga taga jidadka iyaga jiira haddana maanta xorriyadooda waa waayeen askartii dalkan soo dagaalantay mid la arkaba wixii la rabaa lagu sameeyay iyadoon sharciga loo marin yaa sameynaya dad shala markaan waxa dhacayeen guryahooda jooga oo shaqaysanaya ilmahooda la jooga cadaalad miyaa waxaas qof kastoo dalkan wax ka soo qabta waxaa la yidhi tuug waaye war annaga tuuga maahin dad sharaf lahaanahay dalkaana u soo shaqaynay haddana waa u taaganay maamul wanaag iyo waxbaa naloo akhriyaa hadda hanti dhowraha guud muxuu soo saaray markii ugu dambeysay marna wuxuu soo saaray umlana 40 milyan 42 marna 18 jihaaskii dawladda ka shaqaynaya inta soo saara inta aan loogeyna tirada ka badato soo ma aha annaga waxa aan rabnaa asal ahaan maamul wanaag waa mid aan ka hadlaynaa maamul wanaagaba waxaan rabnaa marka waa run dawladdu culaysay waa haystaan laakiin gaabisa jira waxay ka gaabisay dariiqii saxda ahaa oo dawladnimada waa ka leexatay dawladnimada ma raba inaan dhexda dhigo aniga muxuu yahay dariiqaas waa ilaalinta dastuurka waa ku dhaqanka dastuurka oo haddaanan dastuur ilaalinayn maxaan ku wada joogaynaa shalaba ilmaadeeraan ku wada joogi jirnaa matiyaan ku wada joogaynaa Soomaalidaanu qabiil waa ka soo daashay waxay rabaan dawladnimaduna waa inay ahaataa mid wixii lagu heshiiyo ku qotonto inay ahaataa loo baahan yahay marka waxaan rabaa inaan idhaa madasha xisbiyada qaran albaabkeedu waa furan yahay calaa masracihi u furan yahay wax shakhsiya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa wax qaran arrintaas ma caddo
colaad ma qabno laakiin mabaadi' aan aaminsannahay waxaan aaminsannahay qofka Soomaaliga inuu xuriya inay waajibta qofka dambi gala sharciga eedeynaya mararka qaar waxyaabaha dhaco khatarta waxa kamid ah madaxda dawladda qolo aan shaqo ku lahayn dadka inay xirto dadka in la xiriso lagu xiraa waxa lagu xiraa qofka inuu dambi galo hay'adda shaqada kula ay soo aadayso xeer ilaalinta qofka xiriis maxkamadda xiriis aan dhaho xeer ilaalinta eedeynaysa yaa xiraaya maxkamadda xiriis